ka waran haddaan ku dhahdo mar kastood wax cusub baratid oo aad cilmigaaga sii siyaadisid waxaa sidoo kale sii badanaysaa ogaanshahaad ogtay inaad jaahiltay waxay ka dhigantahay markaasi mar kastoo aad tusaale ahaan cilmigaagu bataba waxaa sidoo kale badanaya ogaanshahaad ogtay inaanad waxba ogeyn haddaan tusaale usoo qaato markaasi saddex qof saddexdaa qofi waxayn leenahay ka koobaad biyahan ma arkay iminkaan ag taaganay oo wuxuu ku jiraa kayntaasuu ku dhex jiraa soo qofkaas waxa u muuqata un maadaama geedahani ka qarinayaan biyihii intuu ka arkaya waa in yaroo naarow ah soo wuxuu isleeyahay biyuhuba waa intaa kuu muuqata marka loo barbardhigo qofka biyaha ag taagan qofka labaad baynu markaa leenahay isagana waxa u muuqataa yacni intaa yare indhihiisu ay qabanayaan laakiin qofka saddexaad haddaynu nidhaahno wixii ku dhex jira sida badweyntoo kale iminka ku dhex jira wuxuu arkayaa markaasi biyo ka badan inta ay dadku arkayaan isagaana marka ugu yaqiin badan oo odhanaya yacni biyahan arkay way yaryiin oo inta aanan arag baa ka badan sidaa awgeed mar kasta oo uu cilmigaagu sii siyaado waxa sii siyaadaya garashada aad garanaysid markaasi inaanad waxba garanayn oo aad jaahiltay oo saddexdaa qof iminka haddaynu ku xidhiidhino hal qof oo adiga ah ama aniga ah waxay ka dhigantahay markaynu wixii ka dhex baxsannay oo meel ka fog joogno waxaynu ka aaminsanay intaa yaree aragtideennu ay ka qabanayso laakiin markaynu wixii ag nimaanno amaba bartanka u galno ayaan arkaynaa waxaan isu u ballaadhan yahay iyo yaraanshaha markaasi inta aynu ka garananaa intuu leegyay oo waxay kuula muuqanaysaa wixii aad garanaysay markaasi dhibic bad lagu dhex tuuray oo aad bay u yartay inta aynu garanaynaa marka loo barbardhigo waxa cilmi adduunka yaala